jawiga aqalka dawladda hoose ee Xamar diyaargarowga la sameeyay iyo suugaanta bahda fanku ay soo bandhigeen ayaa ka qaybgalayaasha munaasabadda u suura geliyay inay dib u milicsadaan 59 sano ka hor markaas oo gobolada waqooyi ee dalkeena ay ku xoroobeen gumeysihii Ingiriiska calan Soomaaliyeedna la taagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dadka gobolada waqooyi looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka haddii markii ay dadka waqooyi ay hormuud u ahaayeen dareenka gobonimo doonka iyo wadaniyadda waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormuud ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan aqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno kana shaqeyno mustaqbalka ubadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dawladdan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee hore u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka si taas loo horgeliyo Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada ku guuleysata midnimo kuna tallaabsata horumar sidaas darteed midnimo wadajir iyo cududeenna aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha tartankaas cusub lama jaan qaadi karno haddii aynan u midoobin haddii ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin awoodoodana aysan isu keenin wadahadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland ayuu sheegay madaxweynuhu in la sii dardargelin doono iyada oo uu muujiyay in wax waliba oo xal la sameyn doono waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland aan dardargelino waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay gaar ahaan dhalinyarada waxa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabaradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxay dawladdu diyaar u tahay in la faguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Somaliland oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto sidii la sheegay waxaanan marnaba aan hubaa inay Soomaaliya isu imaan doonto oo aysan kala maqnaan doonin gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qiray in taariikhdaas ay tahay mid mudan in la ilaaliyo loona baahan yahay in laga fakaro midnimada Soomaaliyeed waxaanan isleeyahay on aad iyo aad u aaminsanahay haddii ay keeneen oo ay soo qaadeen waxaynu rabnaa midnimo Soomaali ma kala maarmi karto cid gaar isu taagi kartaa ma jirto faa'iido ay leedahayna ma jirto saynaan mitaal u soo qaadanaya adduunka waa dadka ugu badan 1 bilyan iyo 500 oo milyan ayay sii marayaan waxaana weeye waa hal dawlo waxaana lagama maarmaana wax kastaba waxaan qabaa meel walba dadka ugu badan dadku markuu badan yahay wuu wax soo saar badan yahay
aad iyo aad buu wax u soo saarayaa leesh wax soo saarku waa awoodda dadka sidaa la ajligeed waxaan qabaa inaynu midnimadeennii sidaan u soo celin lahayn ee aynu raalligelin isaga bixin lahayn ee aynu isu kaashan lahayn inaynu samayno xuska 26 Juun waxay bilow u tahay dabaaldegyada toddobaadka xurriyadda oo ah maalmo ka tilmaaman taariikhda ummadda Soomaaliyeed dib u xasuusinaya Soomaalida tubtii xurriyadda iyo tabtii loo maray in laga hoos baxo gumaystaha Muxyidiin Macalin Cabdulla warbaahinta qaranka